baarista Soomaalida iyo dugsiyada ay leeyihiin cilmiyada bulshada. barnaamijka waxay noo qaadaa dhigi doona Ustaad Umar Ali Baashe iyo Ustaad Mahad Waasuge. waxaana barnaamijka dhexdhexaadin doona Maxamed Irbad, gudoomiye Maxamed Irbad. waxaan leeyahay soo dhawaada adigoo aad u mahadsan barnaamijkana nala wadaaga. waxaan leeyahay mar kale soo dhawaada madasha adiga idin furan tahay, aad u mahadsantiin. cilmi baarista Soomaalida iyo dugsiyada culumta bulshada. haddaan introduction yar ama faahfaahin yar ka bixiyo labada qof ee maaragtay panelka noo fadhiya caawa. Cumar Baashe waa cilmi baare madax bannaan, jaamacadiisuna uga baxay Suudaan, wuxuuna sameeyey political economy and political science. dhanka bidix waxaa iga fadhiya Mahad Waasuge oo darajada masterka ku sameeyey public administration. labadooduba waxay ka siman yihiin inay yihiin cilmi baarayaal madax bannaan. mawduuca gaarka ah ee labadooduba ay ka doodi doonaan idinkana qayb ka noqon doontaan wuxuu yahay cilmi baarista Soomaalida iyo dugsiyada culumta bulshada. haddaan si kooban hordhac uga bixiyo cilmi baarista Soomaalida waxaa lagu tirin karaa qadiyadaha aadka ugu qanisan cilmiyada bulshada. sidaas la mid ah cilmiyada bulshada waxa ay leeyihiin dugsiyo kala duwan oo caan ah, aragtiyadooduna micno weyn iyo saameyn ballaaran ku dhex leh cilmiyada bulshada, kuwaas oo darsaya bulshada iyo qofka kuna darsaya aragtiyo gaar ah oo ku dhisan aqoonta ay ka sameynayaan bulshooyinka ay darsayaan. arrinkani waxaa ka dhashay dooda ay soo shaaciyeen baarayaal ay ugu caansan yihiin Edward Said iyo Fraton Fanon, ayagoo ku doodaya in dugsiyadaasi ayna fasiri karin bulshooyinka bariga. haddaba saddex su'aalood aan isweydiin doonaa oo gundhigu noqon doona hordhaca barnaamijka. xiriir noocee ah ayaa ka dhaxeeya siyaasadda iyo saameynta aqoonta? maxaa xadidaya saameynta aragtiyaha fasiraya dadyooga aan reer galbeedka ahayn? halkee ayay kaga jiraan ama ka geli karaan cilmi baarista Soomaalida dugsiyadaasi? marka koowaad su'aalahaas waa kala qaadi doonaa, waxaa noo kala fasiri doona discussion-ka qayb ka noqon doona labada qof ee panelka noo fadhiya. waxaan ku hormari doonaa Cumar Baashe oo rabo inuu si kooban uga bixiyo hordhac culumta maaragtay baarista culumta bulshada Soomaalida inteeda badan ama la dirso ama dadka maaragtay cilmi baarayaasha ee banaanka ka yimaada ee Soomaaliya wax ka dirsa nidaamka ay u maraan kuwii hore la sameyn jiray xilligan casriga iyo waxa iska bedelay, iyo Soomaalida laftirkeedu academic noqday oo cilmi baarista badan sameeyay sida ay wax uga bedeleen cilmi baaristii hore la sameyn jiray ama waxa ay ku soo kordhiyeen. Cumar soo dhaw. bismillaahir rahmaanir rahiim. aad u mahadsantihiin. gaar ahaan waxaan salaamayaa audience-ka iyo dadka soo qayb galay barnaamijkan. haddaan usii gudbo mawduuceega usii gudbo, waxaan u kala qaybin doonaa yani inta daqiiqada haystaan oo isku daya inaan aan soo koobo saddex qaybood ayaan siin doonaa, midiiba 5 daqiiqo maaragtay aan ka doodno. ta ugu horeysa waxaan rabaa inaan ka bilaabo waxaan u bixiyaan dhihi karo waa introductions oo muhiim ah oo maaragtay si aan mawduuca u noqdo mid isla wada fahmo iyo halka uu u socdo. ta ku xigto waxaan isla eegi doonaa perspective-ka ama schoolska maaragtay waxaan la Somali studies ama cilmi baarista Soomaalida taariikhdeedii iyo maaragtay iyo perspective-ka ugu caansan ee u kala qaybsan tahay. waxaan ku soo koobi doonaa halkee ay ka galaysaa cilmi baarista Soomaalida dugsiyada culumta bulshada. xaqiiqatan midda ugu horeysa aan rabo inaan ka bilaabo waxay tahay waxaan caan ah marka oo dadka dhexdooda la isweydiiyo inaad maqashid waxaan waa theory. horta waa maxay theory? yani what is the theory? xaqiiqatan cilmiga ama markaad u fiiristay theory-gu waa halka ugu sareyso oo sayniska u gaaro. saa daraadeed marka theory-gu waa meel la dhihi karo cilmiga hadduu science ana ama social science ha noqdee waa halka ugu muhiimsan ee la sameeyo. saa daraadeed marka perspectiveska ma aragtay iyo aragtiyada markii ay helaan proofs iyo ujeedadoodiina ay cadaato ayaa waxaa lagu tilmaamaa theory inay tahay. saa daraadeed marka theory-gu ma ahan wax ciyaar ma ahan. sidoo kale su-aal waxaa isweydiin mudan qaabkii loo sameeyey social science-ka. social science-ka horta wuxuu ka hadlaa waa qofka, waa insaanka, waa yani insaanka uu ka hadlayo. social science-ka uu ka hadlayo waa insaan noocee ah. insaanka noocee ah uu ka hadlayo social science-ka waxay ka samaysantay
kolkii ay reer galbeedka colonialkooda gumaystiga reer galbeedka ay la falgaleen dadkii kale ayagoo ka duulayo hantidii aqooneed ay haysteen oo laga bilaabo Greega laga bilaabo ilaa Greegii enlightenment age ama waxaan carabi u dhaho casri tanwiir la soo maro nadariyaadkii filosofiga ahaa ayaa laga sameeyay social science-ka nadariyaadka ugu caansan haddaan kow iyo laba ka soo koobo waxaa ka mid waxa la human nature yani human nature qofka insaanka ah ma leeyahay dabiicad uu ku dhasho laba iskuula lagu kala baxay qaar waxay leeyihiin ha qofku wuxuu leeyahay dabiicad uu ku dhashay qaar waxay leeyihiin maya qofku wuxuu dhashaa isagoo ah warqad cad ayuu ku dhashaa dooda halkaas kuma eekaan waxay sii socotay in isweydiiyo dabiicada qofka ama qofka hadduu ku dhashay hadduusan ku dhalanba ma dabiicad fiicana mise waa dabiicad xun qaar waxay dhaheen dabiicada qofka human nature-ka sideedaba waa fiican tahay markuu qofka la falgalo waaqica la falgalo maaragtay iyo isriixa nolosha uu galo ayuu wuxuu noqonayaa qof fiican ama qof xun arrintaas waxaa diiday rag falaasifo ah diiday waxay dhaheen nature-ka humanka sidiisa waa shar oo qofku waxaa ku duugan waa shar waa qof dhib badan adduunka dhibaatada uu insaanka geystayna waa wax geystay oo u dhigmay insaankii ma jiro nadariyaadka kale ugu caansan waxaa ka mid ah wada taqaaniin evolutionka yani isbedelka ama nadariyada tadawur yani evolution marka hore biology ahayd shaqo kuma lehayn social science laakiin kadib waxay noqotay mid soo dhexgal social science koo noqoto dadka inay soo hormareen ay soo maraan maaragtay waqtiyo kala duwan asalkoodna dadka ay ahaayeen wax la dhihi karo inay lagu tilmaami karo hamaj ama dad aan nidaamsanin ahayn nidaamkan uu dambeeyay nadariyada saddexaad ugu caansan waa nadariyadan loo social contract waxaa ka sameysmay nadariya waxyaalaha hadda aan naqaano modern state-ka ka mid tahay halkaas waxaan uga gudbayaa su-aal muhiim ahoo qofka researchka ah oo social science-ka daraaseeyo ma noqon karaa qof objectivism ah qof objective oo maaragtay aan ka bixin objective-ka taasi aan hadda waxaan isku day ma samayn doono maaragtay jawaabo oo inaan bixiyo jawaabtaas sax taasaa khaldan ma dhahayo laakiin waxaan sheegayaa bis sida looga doodo objective-ka dad waxay qabaan inay muhiim u tahay social science-ka dad qaarkoodna waxay qabaan objectivism-ku inuusan suurtagal ahayn oo qofka social researcher-ka ah raadinayo maaragtay social phenomenon-ku ma noqon karo qof objective ah sababtoo ah wixii aray bixina ee Soomaaliya inaad ku darto isku day okay objective Soomaaliya ma yalla objective yani qofka inuusan qofka mawduuca ka bixin oo maaragtay oo waxyaabo kale uu ku darin yani qofka social researcher-ka ah horta wuxuu raadinayo marka hore aan sheegnaba waa qof insaanu baaraya yani insaanku baarayo isagana wuu ku jiraa qofka kalena wuu ku jiraa saa daraadeed waxaa adag qofka inuu iska dhex baxo isaga yani in carabtu waxay dhahaan qofka hooskiisa kama dulboodi karo saa daraadeed marka qofka isaga iskama dhex bixi karo way diideen wax dadka diida waxaa ka mid nimanka la dhaho madarasada caanka ahoo la dhaho structuralism yani oo dadkan uu ka mid yahay ninkan filosofka caanka Michel Foucault oo sameeyay saameyn weyn ku leh social science-ka saa daraadeed marka qofka inuu object ahaa maaragto mawduuca uusan ka bixin social science-ku waa adag tahay mararka qaarkood waxay gaarsiiyaan suurtagal maba ahanba diinta qofka maaragtay inuu backgroundkiisa meeshuu ku dhashay dhaqankiisa waxay saameyn ku yeelanaysaa macluumaadka iyo maaragtay resulta ama natiijada ka soo baxayso research-ka saa daraadeed marka gumaysigii reer galbeedka daraasaadka ay ka sameeyeen dadka aan reer galbeedka ahayn waxay ahaayeen kuwo ku dhisan aragtiyo iyo maaragtay wax la dhihi karo impression yani intibaac oo yani suurad ay ka haysteen dadkan inay asal u ahaa maalan hadda nin filosofi inaan taqaanin ma garanay oo ugu caansana Hegel wuxuu qabay qofka madow inuusan
in la xanuujiyo mooyaane uusan howl qaban karin yani saa daraadeed marka wuxuu u ololeyn jiray adoonsiga iyo maaragtay kala saraynta halkaasina ka samaysantay waxyaabaha maqashin dadkan waa dad markay dhahayaan cadaanka uu aaminsan yahay inay dadka aan reer galbeedka ahayna dambeeyaan waxaa asal u ah suuraddii hore ee ka haysteen dadka aan reer galbeedka ahayn ee afrikaanka iyo carabta iskugu jiraan xataa haddaa aragtiin qofka carabkii waxaa loo sawiraa qofu maaragtay oo khamriga iyo naagaha iyo jecel qofka madowgana dee waa taqaana suuradaha laga haysto saa daraadeed marka environmentiga noocaasi maaragtay social science-ku ka dhex samaysmay haddaan u imaano marka soomaalida u imaano sidaan ognahay Somali Studies wuxuu ka mid ahaa waxaan la oran jiray Ethiopian Studies yani Ethiopian ku jirnay yani aerial study-ga la daraaseeyo Africa waxaan kaga sii jirnay Ethiopia hoostageena 1978 ayaa rag odayaal oo Chicago ku kulmay oo shirka Ethiopia Studies lagu qabanayay ayaa waxay go'aansadeen in Somali Studies laga dhex bixiyo Ethiopian Studies laga dhex bixiyo so ay Somali Studies u madax banaanaado taasna waa markii dagaalkii Soomaalida iyo Ethiopia dhex maray 1970kii waxay keentay markii Soomaalida ay la goostaan inaan waa ka madax banaanahay Ethiopian Studies halkaas marka waxa xoogeystay in si gooni ah loo daraaseeyo Soomaalida xaqiiqatan hadda dib ugu noqono waxyaabaha ugu muhiimsan Somali Studies uu ka bilaaban karo ma ahan I am Lewis ma ahan I am Lewis lagama bilaabi karo waxa isleeyahay in laga bilaabo madaarista suufida Sheikh Aweys al-Barawi oo kale waxaa jira Sheikh Abdullah al-Qudubi oo jaamacada al-Azhar tagay bilowgii qarnigii 20aad oo weliba doodihiisa naqdin jiray Ibn Taymiyyah xataa naqdin jiray daraasaad fiican ka sameeyay Sheikh Yusuf Kownayna ka mid marka farqiga u dhaxeeya ayagii Androwiski waxay ahayd Androwiski wuxuu isticmaalayay adawaad ama tools oo maaragtay casriga in wax la qoray research kan casriga uu isticmaalay Androwiski marka isaga languageist ahaa marka waxa isleenahay languageska iyo fiqiga ay ka bilaabatay Somali Studies xaggaas waxaa dareemaysaa marka macnaha weyn ay diinta islaamka Soomaalidu ugu fadhido madarasad kale waxaa jirta modern ama colonial studies waxaa hogaamiyo odaga caanka ah I am Lewis waa nin anthropologist ah oo Ingiriis ah waa ninka ugu caansan maaragtay daraasaadkaas ka sameeya Soomaalida isaga iyo nin kale Talyaani oo la dhaho Enrico Giulli waxa ka sii horeeyay aabo u ahaa Richard Burton 1930kii ayuu Saylac imaaday isagoo dhahayo waa first fruit yani cagihii ugu horeysay ee soo dhigtay Soomaaliya waa fahmi kartaa marka kelmadda cagihii ugu horeeyay Soomaaliya soo dhigay cunsuriyad ku jirta wixii dadka joogay ay maxay ahaayeen yani madrasadaasi waa la naqdiye dadka naqdiye waxa ugu caansan madrasadan ama iskuulka Marxismka horta waxa ugu caansanaa ilmo Samatar Cabdi Samatar iyo taqaaniin iyo Ahmed iyo Cabdi gadaal way ka noqdeen markii dambe maaragtay Marxismka laakiin dowladoodii hore sideetaniidii waxay ahaayeen niman Marxiin oo ku dooda classiska yani dabaqaadka dadka oo iyo la naqdiyay waxa la dhaho imperialismku waa dowladaha xoogga badan ee gumaysiga ah yani marka waxay leeyihiin ayagu waxay ku doodayeen waxa soo xigto gabar la dhaho Catherine Bestman oo ayadana yani madrasad kalena ku jiri doonto oo soo sheegeen waxay ku doodayeen in gumaysiga iyo dadkan Afrikaanka ah si loo daraasay totally ay khaldan tahay waxa daraasayna ay yihiin dad imperialism ah oo gumaysta ah oo aanan cilmi ka sameynay rabo in uu gumaysto ama uu dulleysto dadkaasi ayagoo diidan asalka capitalismka ee nidaamka Ingiriiska iyo Mareykanka uu ku dhisan yahay waana waxaan loo yaqaan Marxismka labo waxa iyo dialectic materialism sharxi hadda waqti uma hayno ninku waxa ka daba qaatay Marxismkii way ku filaan ways waxa ka daba qaaday niman la dhaho Somali
Somali invasion حتى قانين مختار محمد الحاج مختار iyo عبد الكوسو iyo حسن mahad alle iyo gabadh aad sheegeen Catherine Bestman nimankaas waxay qoreen kitaab la Somali invasion waxay leeyihiin taariikhda Soomaalida waa in dib loo qoro sababtoo ah taariikhda Soomaalida hadda jirto waxa qoray gumaysigii waxa qoray reeraha Soomaalida ee xoolo dhaqatada ah marka waxay leeyihiin waxa meesha ka maqan qayb badan oo bulshada Soomaaliyeed ka mid yihiin dadka beeraleyda ay ka mid yihiin dadka maaragtay xeebaha dega Somali invasion marka waxay qabaan iyaga identity Soomaaliga ah taariikhda Soomaalida suugaanta Soomaalida dhammaan in dib loo sameeyo iyagana waxaa jirto lagu xantaayo lahaa waxay si kala furfurayaan Soomaalida si kala furfurneed marka waxay leeyahay yani looma baahna hadda in Soomaalida si kala furfureen waxa loo baahan yahay hadda maaragtay jirka Soomaalida in la isku keeno ugu dambeyntii waxaa jirtay madrasad aydan hadda dhawaan socotay oo dhahay Adan Studies waxay ka bilaabatay nin waxaa jiro researcher oo Germany oo Mark Honey wuxuu leeyahay Somaliland magazine oo Africa Studies ah dhammaan dadka editorska maaragtay ku jiro waa dad cadaan ah Soomaali kuma jiraan marka waxay ka qoreen article maaragtay qoreen waxay u bixiyeen can the Somali speak qofka Soomaaliga ma hadli karaa ayagoo ka qaadanaya waxaa jiro article noocaas oo gabar Hindiyada ee qorto la dhaho can the subaltern speak yani subaltern waxa ka wada dadka aan wax baran laga awood badan yahay oo aan dhaqaalaha fiican haysan ma hadli karaan marka ay waxay u soo qaateen subaltern waxay leeyihiin can the Somali speak waxay leeyihiin daraasadka Soomaaliga waxa xoorto ku haysto niman cadaan ah oo ayaga u fadhiyo meesha rabaan in Soomaali u hadlaan doodaas marka waxa leeyahay waxay hoos tagtaa waxaan loo yaqaan post structuralism-ka oo ah in structure-ka ama qaab dhismeedka sayniska ama social science-ka in xirfaha loo qaado la burburiyo okay oo ka dhamaatay aad u mahadsan yahay Cumar Baashe ma hadaan siin doonaa laakiin sida barnaamijka uu yahayba waxaan rabnaa qof si gaar ah uga hadli doona ama mowduuc gaar ah ama aragti gaara si gaara u sharaxi doona ma jiro laakiin waxaa la samayn doonaa dulmarkaas marka inay su'aalo abuuraan oo kadib qof walba baaritaan sii sameeyo hadday noqon lahayd Somali study hadday noqon lahayd qaabka cilmi baarista Soomaalida laga sameeyo ama Soomaalida cilmi baarista sameysay laftirkeedu qaabkii u martay marka qof kasta inay su'aal ku dhaliso laakiin in aragti gaara ama si deeply ama si qoto dheer loo guda galo qorshahana maaha laakiin discussion-ka iyo qaybta aan siin doono iyadana insha Allah waxaan rajaynaynaa inay su'aalo badan oo micno badan sameyn doonto waa suge wuxuu ka sheekeeyay Cumar Baashe taariikhda soo maray iyo school of thoughts-ka xitaa dadkii wax ka qoray Soomaalida heerarkay soo kala mareen waxaa si kooban noogu sheekaysaa ama nooga sheegtaa markii tusaale Richard Button oo kale niman orientalista iyo qolo kale transformationista oo Cabdi Ismaaciil Samatar ka mid yahay inay markasta isbedelayso school of thought Soomaalida ee Somali study lagu sameynayo waxaad moodaa 15 sano ama 10 sanaba inuu marxalad gaar galayo marka si kooban oo maaragtay qeexayso bal school of thoughts-ka ama Somali study-ga adoo context-geeda ku cabirayo dalkii kala duwanaayo wax ka sameeyay iyo waxa uu mustaqbalka noqon karo jiilka hadda soo kacay doonaya inay laftirkooda filiga ku biiraan soo dhow aad ma santahay cirbad Baasha iyo asxaabta kale ee madasha joogto runtii sidoo Baasha sheegay social science-ka bin aadana sameeyo qofka theory-ga ama aragtida la imaanaya ama qoraalka sameynayana fikradiisa iyo bias-kiisa kama marnaan karaan waxa uu sameynayo oo waa social science qofkana wuxuu ka mid yahay bulshadaas la istaarigareynayo ama qoraalka laga sameynayo ama aragtidaas laga soo gudbinayo qayb ka yahay sidoo Baasha sheegay Soomaaliya hadda school of thoughts-ka caanka ah ilaa 4 lagu tilmaamaa markasta way isbedelayeen aragtidana inta badan qofka baaxidka ah ama kooxda markaas cilmi baarista sameynaysa ee wadanka imaatay ayaa falsafadooda iyo
backgroundkooda iyo aqoontooda iyo meelahay ka imaadeen ayaa saameyn weyn waxay ku leedahay qaabka u fikirayaan iyo waxa ay Soomaaliya ka qorayaan. Soomaaliya wax badan lagama ogeyn. Richard Burton ka hor gaar ahaan reer galbeedka wax badan kalama socon dhulkan cid degan iyo waxa ay tahay isee u nooshahay. Richard Burton ayaa ahaa qofkii ugu horeeyay oo reer galbeed ah inuu Soomaaliya imaaday, dadka Soomaalida la kulmay, la sheekaystay, buug ka qoray markaas. isaga iyo kooxdii ka dambeysay oo runtii Am Lewis uu maaragtay uu ku xigay jiilkii ku xigay ahaa iyo ninkii kale oo Talyaaniga ahaa Cirilli iyo iyagana galbeedka ka imaadeen. ujeedkan wuxuu ahaa inay fahmaan Soomaalida si awoodaha reer galbeedka markaas ay isugu fidiyaan dadka Soomaaliyeed. marka aragtidooda school of thought-kooda wuxuu ku saleysnaa Soomaalida waa dad reguura ah, waa dad aan modern aan ahayn, casri ahayn, oo reer galbeedka iyo nolosha casriga iyo si dunida u nooshahay aanan wax badan kala soconin. marka waxay u baahan yihiin in la modernize garay, in la casriyeeyo. aragtidooda taasay ku saleysneed in dadkan lagu sameeyo in la casriyeeyo oo sida dawladaha u nool yihiin dadkan geelle iyo iska ahaayeen xoolooda iska dhaqan jireen in laga soo wareejiyo oo laga dhigo dad xafiiso fadhiyo, dawlad leh, maamul leh, las doorto. aragtidaas ayay ku saleysneed theory-gooda. sidaa fahmi kartaana aragtidaas waxaa riixaayo dadka waxaas qoraya markaas background-kooda iyo bias-kooda ayay iska lahayd. waatii 70-meeyadii iyo maaragtay dad Soomaaliya markaas waxaa aad u saameeyay shuuciyadda, nidaamka shuuciyadda. nidaamka shuuciyadda ayadana wuxuu saameyn ku yeeshay Somali studies iyo aragti cusub soo baxday oo ah oo ku salaysan maaragtay marxismka waxyaabahaas ku salaysan oo sidoo sheegay Baasha Cabdi Ismaaciil Samatar, Axmed Ismaaciil Samatar iyo gabar la yiraahdo iyadana oo reer Yurub oo la yiraahdo Lidwin Kaptigen iyo ay kamid ahaayeen. burburkii kadib haddana nadaaliyad cusub soo baxday. community waa baxay, reer galbeedkii waa baxeen. aragtida cusubna inta badan waxay ku saleysneed horta Soomaalida qaabka loo arko, qaabka loo fahamsan yahay ma ahan. dad badan oo hadda qaarkeen inta inay fadhiyaan ay suuragal tahay inay aaminsiin waxaa jiro dhahayo Soomaalida waa dad isku af ah, waa dad isku dhaqana, waa dad isku diina, waa dad isku maaragtay wax walba ah. so waxaa jirta iskuul cusub oo dhahayo sheekadaas sax ma ahan. Soomaali isku luqad ma ahan. Soomaali aan isfahmi karinaa jirto dalka joogto da isku imaadaan. Soomaalida isku maaragtay geographic ahaan xitaa meelahay ku kala nool yihiin maaragtay waa kala duwan. maaragtay qabiil kastoo dhul goostay. marka dadka haddii isku dhaqan, isku diin, isku af, isku wax walba yihiin waxay isku dagaalayaan. kala duwanaana jirto. aragtidaasaa maaragtay jirtay. aragtida dambe oo hadda maaragtay Dr. Baadiyo iyo maaragtay uu buugiisa ku qoray wuxuu leeyahay Somali studies oo dhan marka la fiiriyo dadka waxayba iloobeen in reer galbeedka intaysan imaanin waddankan ay culimo maamuli jireen. culimo-diin ka taliya dhulkan, dadka diinta ku faafiyo, dadkii ugu horreeyo mustacmarka la dagaalamay ahaa in taariikhdooda aadan qorin. dadkii Soomaalida ahaa ama ajaanibta ahaa Soomaaliya wax ka qortay iska ignore gareeyeen. sidoo kale wuxuu leeyahay dumarka Soomaaliyeed kaalinta ay ku leeyihiin dowladnimada Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed labadaba waa la gacan bidixeeyey. marka school of thought-kan wuxuu leeyahay waa more inclusive maaragtay marka aragti kasto waxaa saameyn ku leh dadka qoraayo iyo maaragtay wadciga markaas ay ku sugan yihiin iyo background-kooda taariikh ayaa saameyn ku leh. dadka ajaanibta ee Soomaaliya imaaday ee Soomaaliya ilaa hadda wax ka qora caqabada ugu waaweyn oo haysto su-aashii dib kusoo noqdo waxa waaye
dad contextiga ama dadka Soomaali si fiican u fahansan waxaa laga yaabaa inay ama meel gaar ama hotel inay tagaan dadka u waramaan dad dhowr qof loo geeyo maaragtay dadkaas ay la sheekaystaan kadib ay iyagoona ummadii kala arkin aragtidii iyo wixii ay ku saleeyaan wixii ay xamar oo kale hadda qofkii imaado ee wax ka qoro xitaa ku noolaada xamar ee aan magaalada bannaanka uga bixin dadka xamar bannaankeeda ku nool noloshooda iyo habdhaqankooda aad wuxuu uga duwan yahay dadka xamar ku nool lifestyle-ka ay ku nool yihiin marka caqabadaha ugu waaweyn oo hadda ajaanibka haysto waxaa ka mid ah inay maaragtay aragtiyadii hore ee Soomaalida u badnaa in Soomaalida waa dad mujtamac qabaliya qabiilkooda la fiiriyo si ay maaragtay hal istaari gareeyo oo runtii anaga xitaa marka istaariga sameeyna hadda dadka ajaanibta qaar aan ka shaqeynayno ay ku leeyihiin maaragtay magaaladan qabeelka qabaa'ilka u badan iyo meelaha ay kala duwan xaafadaha iyo analysiskan ku darno oo kale marka biaskaasna wuu jiraa sidoo kalena iyaga contextigii Soomaalida wax badan kama ogo laakiin marka si kooban nadariyada ama aragtiyada Soomaalida Somali studies aragtiyada Soomaaliya ee jiro waxaa inta badan saameyn ku leh dadka markaas qoraayo iyo background-kooda ayaa maaragtay saameyn ku leh intaas ku soo koobi lahaa su-aal kalaan rabaa inaan su-aashaan raaciyo oo ah waxaa jira jiil badan oo Soomaali ah oo hadda jaamacadaha dhameeyay intooda badan academic ah doonaya inay cilmi baaris sameeyaan intooda badanna isku dayay inay bedelaan narrative-kii ama aragtidii ay faafinayeen ama ay qorayeenba dadka aan Soomaalida ahayn iyo jiilkii Soomaalida ahaa ee ayaga ka horreeyay tusaale maanta dadka Soomaalida ah wax qora academic ah paperadooda inta badan warbaahinta caalamiga ama joornaalada caalamiga ay ku soo baxaan waa dad tiro kooban oo la dhihi karo 10 ba kama badna dal dhan oo dadkiisa inta xitaa xuduudaha ka baxsan 20 milyan ay ku dhow yihiin inay wax ka qoraan fagaarayaasha caalamka ku matalaan wax 10 qof ka yar waxay su'aal kale gelinaysaa dadka Soomaalida intooda wax qarta iyo tayadooda heerkay gaarsiisan tahay iyo xitaa jaamacadaha iyo maaragtay ay ka soo baxaan maxay ka sii dambeeya ama ay ku sii dari karaan marka si kooban waxaad ka mid tahay dhalinyarada Soomaaliya wax ku bartay cilmi baaris badan la sameeyay ama cilmi baaris badan oo Soomaaliya laga sameeyay qayb ka noqday beebarana daabacay qofka doonaya hadda dhalinyarada jaamacad Muqdisho ku dhameeyay ama barnaamijka ku soo dhameeyay doonaya inuu iskuuladaas ama Somali study ama si wax Soomaaliya quseeyo inuu wax ka qoro narrative-keedana qayb ka noqdo maxaa challenge u haysta waa mahadsan tahay maxamed runtii su'aal aad u muhiimsan waaye ana waxaa aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka wax ku baratay ee wax qorta aad u yar yihiin inay yar yihiin wax la fahmi karo waaye qoraalka iyo cilmi baarista iyo maaragtay waxay u baahan yihiin maalgelin iyo maaragtay dad taageero u baahan yihiin Soomaaliya hadda jaamacado badan ku yaallo laakiin sida jaamacadaha u badan yihiin wax soo saarkooda aqoon u badan xoogga waxaa la saaraa in arday la soo saaro laakiin in aqoon la soo saaro lagama shaqeeyo knowledge production waxaa lagu sameyn karaa cilmi baaris lagu sameyn karaa waxaa laga yaabaa jaamacado badan inay ama qayb cilmi baaris inay leeyihiin laakiin aysan shaqeyn magac ahaan inay isaga jirtaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa in kulamo oo kale iska qabtaan laakiin baxthi cilmiya oo jaamacaddii ay soo saarto oo funded ah oo qofka qoraayo waqti uu geliyey oo kharash la geliyey aad u yar yahay taasna dhaqaale darida waddanka iyo dadka Soomaaliyeed fahamkooda oo maaragtay cilmi baaris oo runtii liita ayaa isleeyahay way saameyn ku leedahay waana midda keentay dooda Cadan Studies waxay ka bilaabatay ninka Jarmalka ah wuxuu yiri Soomaalidu wax ma qorto qofka Soomaaliga inuu 8 saac uu computer fariisto oo wax akhriyo oo wax qoro ma karo marka in anaga wax u qorno maxay nagu diidayaan saasay ku timid marka Soomaalidana aragti waxaa jirta dadka waa dad oral society ah waa hadla wax ma qoraan
idaacadahay aada u dhegaystaan buwaagta ma akhriyaan marka dhaqankaasna saameynuu ku yeelanayaa laakiin marka la fiiriyo Somali studies runtii dad badan ma soo baxayaan hadda dad badan oo Soomaaliya hadda scholars ah wax badan ka qoray beeshanaysi galayaan retired waaye ka sii baxayaan kuwa Soomaalida iyo kuwa ajaanibta intaba way ka sii baxayaan saaxadda way duqoobeen qarkood waa dhinteen jiil cusub oo maaragtay hadda aad u kacsan oo inay bedelaan rajo fiican laga leeyahay aad u yiri marka meeshaas runtii waxay u baahan tahay aragti iyo ka fikir cusub dadka Soomaalida ee dalka wax ku bartay aniga waxay la tahay marka taas aragti cusub ay soo kordhin karaan aragtiyadan school of thoughts ka hadda aan sharaxayno dhan dad kale oo wadanka imaaday ayaa inta badan bushgareynay ama Soomaali degan wadamo kale soo waxa laga yaabaa hadda Soomaalida dalka wax ku baratay inay school of thought cusub oo dadkii dalkan maaragtay ku noolaa ee wax ku bartay aragti ayay ka turjumayso oo ka duwan kuwii hore inay la imaadaan waa suuragal waxyaabaha hadda waxyaabaha dadka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka hadda joogto waxyaabaha aad uga hadlaan waxaa ka mid ah kaalinta qurba joogta oo kale iyo identity-gooda runtii dood aad maaragtay u culus waaye waxay la tahay dadka Soomaaliyeed ee dalka joogo sababtoo qurba joogta waxay saameyn weyn ku leeyihiin arrimaha dhaqaalaha arrimaha siyaasadda ee wadanka oo dhan dood badan oo waxaa jirta dhehayso dadkan dalkii madaxda ka wada noqonaya xildhibaanada wasiirada madaxdii hogaankii baarlamaanka oo haddana wadamo kala degan oo maaragtay wadan kale u dhaartay baasaboorka haysto kaalintooda maxay tahay waxay la tahay marka doodaha noocaas oo kale ah waxay ka dhex imaanayaan waa school of thought cusub ay la tahay aragti cusub oo ka imaanaysa dadka Soomaaliyeed ee dalka wax ku bartay ee dalka joogo ee aanan lahayn dal labaad maaragtay ay tagaan marka waxay la tahay waxyaabaha soo kale aragtiyada noocaas oo kale way ayaa ka mid ah waxyaabaha cusub ee dadka Soomaaliyeed ee dalka jooga ay soo kordhin karaan mustaqbalka aad u mahadsantahay mahad waxaan siinayaa 2 daqiiqo Cumar Baashe سويس لسؤاشي أن ويدي ما هاد uga jawaabo kadibna idinka idin furi doona أكتر waxaan ku bilaabay isla markii hadda Soomaaliya da aragteen social science maxaa loo yaqaanaa waxaan u maleynayaa in geography iyo history loo yaqaan oo meesha ka baxsan yihiin sociology iyo anthropology iyo history iyo economic iyo political science iyo maaragtay artistki iyo shicirki iyo gabaygi iyo suugaanti yani waxaas dhan kale isku soo daro yani ma garanayo meel hadda takhasus gooni jaamacadaha Soomaaliya ka baxan lagu dhigto ana waxa isleeyahay mushkiladda ugu weyn hadda qofka Soomaaliga haysto oo waliba researcher-ka ah waxa kowka ah ma haysto agab wax ku baaro agabyada waxa lagu baaro kaliya ma aha inuu qofkan uu haysto electronic ama technology kaliya haysto ma ahane waxa loo baahan yahay in la barto how to research yani social science wuxuu leeyahay qaab wax loo baaro oo inuu qofkaas uu ku tababarto uu barto mid kale muhiimka ahna aan is leeyahay in qof ardayga Soomaaliga ah oo jaamacadaha dhigto in lagu tababaro eedana critical think يعني إنه وح نقديه ووح أخريه ومعركة مدو هذا وماك هوني وصومالي ده كده عايزين كم إذا قف صومالي ده 6 ساعات عدد إنه صار وح أخرين يعني كم إذا هذا أو هو يعني 6 ساعات عدد أيان أخريا معلوم والبيان أو ماك هوني إن كان جرماني ده أنثروبولوجي جه هواي مركا إن وح سوشيال ساينس كو أيجو إن وح بدن لأخريه صار وح أساسات يعني سأقول لك وقت بدن أو بعنتاي وح لو أخريه marka mas'uuliyadda ugu horeyso oo ugu weyn waxa ay dul saaran tahay waa jaamacadaha waay jaamacadaha Soomaalida hadda looma furin in
knowledge production ay sameeyaan waxa loo furay waa business waay bis ma dhahayo jaamacadda business ma aha jaamacaduhu waa business waay weliba casriga aan nool nahay jaamacaduhu waa business oo lacag ka soo xarad waa shirkad waa jaamacadda laakiin saasay tahayna jaamacadaha kama marna in ay sameeyaan knowledge production ay inay qiimo siiyaan maaragtay iyo ahmiyad badan siiyaan aqoonta in la soo saaro aqoonta ugu muhiimsan hadda u baahan nahayna soomaalida casriga hadda aan joogno chemistry ma ahan medicine ma ahan yani hadda waxaan u baahan nahay soomaalida inay fahamto nolosheeda taariikhdeeda iyo qofka soomaaliga maaragtay inuu isaga isfahmo marka waxaan u baahan nahay inaan waqti badan la geliyo social science-ka aad u mahadsan yahay baashe hal daqiiqo oo codsiya baa waxaan siinayaa mahad arrinta baashaha waxay igula soo dhaceen marka la fiiriyo Somali studies dadka wax ka qoro background-kooda gaar ahaan dadka ajaanibta ah Marcus Huhn oo kale I'm Lewis waxay anthropologists ahayn cilmiga anthropology su'aasha marka aan suudiyo anigu waxaan kamid ah qofka Soomaali anthropology barto Soomaalida dhaqankeeda iyo sida ay u nooshahay in la fahmo waxa fieldiga anthropology waa imisa jaamacadooda anthropology wadanka dhigto imisa ardayda barata anthropology marka meeshaas fiirisid waxaa muuqato macnaha in innaga aan iloobayno ama aan ahmiyad siinaynin culuum aad muhiim noogu ahayd runtii aad iyo aad macnaha waxaan kula talin lahaa ardayda hadda bachelor oo kala dhameeyey masters inay sameeyaan rabaan inay culumtaas oo kale ay raadiyaan anthropology si ugu yaraan gaar ahaan ardayda social science ka barto inay maaragtay xooga saaraan ومعسين يا مهد كل واحد نروح يجي سيشن كل سجن عاد مهم وموضوع عن سيون السجن ولا حريرة السجن وقت ما نور بينا وإن السجن وقت كانوا ديسكشن تيو معنا تصور بيجي سلسلة مركا واحد نسينا يا سؤالها أنا واحد بدل موجهه وحن جعلان سلطان إنه يقولوري بميكروفون كا نلا ما هي أنا قاعد وحنا كنا سؤال شو فضلا هكون نعطى أو فعلها تقبتين أما سؤالها تقبتين هكوبناتو mahad celin iyo wixii kala maartay waa ka qabnaa toos magacaaga iyo su'aasha oo aad ama faalaha taa qabtid fadlan hadii aad faalaha taa qabtid hal daqiiqo aysan ka badanin markasta qodobka toos waa waxaan ku hormarayaa qaybta waxaan haysanaa si guud su'aalaha iyo discussion kaba 10 daqiiqo وماسك لكن ku hormaraya السلام عليكم ورحمه الله وبركاته waxaan leeyahay maxamed axmed cantoobo أنا مركو هنا وما دعيو ولا شعرت وذاك ملال فيه يربط نودات هنا الماشى هو ماشي ما هو اسمه توبي كان عاوة ومهم مركي ليش إنه توبي كان جرو أيوة قصة هنا عماده وحن ربع مركو هنا أهمية يوج إلى صارنو قال يلا ماشي جوتي أنت راجع مغمر علم بارس quality-geeda iyo tayadeeda iyo horta marka hore in wax la baaro in xoog la saaro waasuga ka hadlay in jaamacadaha research units badan inaysan lahayn jaamacad quality-geeda marka hore qofka ka soo baxa waxa ka horeysa horta research institute-ka ama research department-ka jaamacadaas quality-geeda intuu leeyahay jaamacadaha adduunka saa ogtaa waxaa la sameeyaa ranking-kan waxaa lagu sameeyaa meeqa beebar iyo muxuu ahaa bishan ama sanadkan ay soo saareen waxaa jiro kale dhib kale oo haysta Soomaalida hadii ay noqoto Soomaalida halka wax ku baratay iyo Soomaalida dibadda ku barataba oo ah literature problem inuu jiro markii aad rabto inaad research samayso adiga laftirkaaga ama markii aad rabto thesis lagu soo diro inaad qorto Soomaaliya rabto inaad wax ka qorto for example waxay danta kugu qasbaysaa mararka qaar inaad wadamo kale wax ka qorto sababtoo ah enough waxa laga rabaa wax loo yaqaan literature review markaad ma helaysid wax kugu filan oo Soomaaliya laga qoray toobiyada qaar waxa laga yaabaa in xoog la saaro Soomaalida asalkoodii Soomaalida maybe siyaasadda iyo social science-ka mararka qaar laakiin waxa loo baahan yahay cilmi baaris dhan walba taabanayso oo haday noqon lahayd caafimaad haday noqon lahayd muxuu ahaa waxyaabo kasta social science-ka laftirkiisa wuxuu noqday mid meel walba gala caafimaadka oo kale waxaa jira wax loo yaqaan social determinants of health
waxyaabaha saameeya caafimaadka qofka waxay ku xiran tahay meeshuu degan yahay qoyskiisa inuu faqri ahaa inuu beeraley ahaa inuu ahaa muxuu ahaa meelo kale marka taas laftirkeeda waxaa laga sameeyaa cilmi baaris kala duwan soomaalida waxaan marka idinku dhiirigelin lahaa waxaan rabaa in hadda aniga departmentiga waxaan joogaa gobolka banaadir qaybta arrimaha bulshada jaamacadaha magaalada oo dhan waa la shirnay waxaan rabnaa inaan xoogga saarno dhalinyarada waxay ka sheegtaan badanaa markay rabaan inay cilmi baaris sameeyaan resource la-aan inay jirto shakhsiyan aniga hadda waxaan sidgareeyey fan yar oo loogu talagalay qofkii raba inuu cilmi baaris sameeyo koostiga ku bixi doono iyo waxa ku baxaya mararka qaar laakiin waa inay noqotaa wax markaas taabanaya bulshada meeshaas ku dhaqan annagoo kale waxaan rabnaa inaan tala naga siisaan oo beebar aa ka soo saartaan research ka samaysaan sewage systemka iyo drainageka magaalada see xal loogu heli karaa adaa lagaa rabaa markaas research methodologygaagii rationaalkii ka dambeeyana waxaan samayso markaa research samaynayso waxa ugu horeeyo kow rationaal waxa la yihahdaa jira oo sababta aa u samaynayso researchga wuxuu yahay kabacdina haddaan rabto adiga aakhirka dadkii cilmi baarista shaqo kule margin of error waxa la yihahdaa jira hadduu rabo yuu sax noqon hadduu rabo yuusan meesha loogu talagal laakiin at least recommendation inaad ka soo saarto kadibna muxuu ahaa hadduu ilaah yihahdo waxaan rabaa sidoo kale dhalinyarada wax qorta wadanka joogta hadaaya cirbadna waa sheegay qoraalka aada u weynaya waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo mahad waa suge oo kamid ah cilmi baarayaasha magaaladan wuxuu leeyahay website la yiraahdo Somali Public Agenda Somali Public Agenda waxaa lagu qoraa artikala badan artikaladaas mararka qaar hadda annaga waxaa jira mid aan kood garan qofku waxaa u baahan tahay evidence backup marka aad rabto inaad wax ku doodo dowladda hoose oo kale annaga waxaan rabaa inaan ku doodno inaan hay'adaha internationalka xoolaha iyo waxa ay wadaan implementationka iyo balaanka wax hore naga rabaa inaan sameeyno laakiin haddana waxaa u baahan tahay scientific evidence yaa u baahan tahay mararka qaar marka waxaan ku faraxsanahay article ay qoreen Somali Public Agenda oo la yiraahdo why local government matters dowladda hoose in la empower gareeyo shaqooyinka heer kore inaysan ka socon karin ee laakiin waxa loo yaqaano bottom up approach inay muhiim u tahay article badan ay qoraan in lagu xirnaado mararka qaar waxaan rabaa language problem inuu idinka laftikiin loo arkin haddaan rabto xataa cilmi baarista luqadaada hooy ku sameey adiga laftirkaaga ku anfacaysaa adduunkana waa la tarjumaa haddii xataa aad rabto evidence ahaan inaa qofka uu baakab gareeyo waa mahadsantihiin shaqadiinana aad magacayga Sumayn Nuur Cabdi waaye waxaa ku darsanaya aragti waxaa lagu doodayaa caawadan maxaa loo sameyn lahayaa Somali study sida awood ognahay markii laga soo bilaabo qofku markii dib loo raaco dhalinyarada Soomaaliyeed waliba jiilkeena ma u helin inay soo bartaan wax Somali study ama taariikhda Soomaalida badideed iskuulaadka dhiganayna ama macaahida waxaa ku soo qaadanaa taariikhaha Carabta juqraafiga Carabta sidoo kale wadamada kale taa ku soo qaadanaa taariikhooda markuu qofka intaas ka soo gudbo jaamacadaha sidoo kale waxaa ku qaadanaa wadamadaas oo kale marka ku qaadano sidee marka qofku uu wax ugu qori karaa taariikhdiisa iyo bulshadii uu ka soo jeeday maba soo baraninba ilaa intuu jaamacada ka imaanayo iskuulka uu soo dhiganayay wuxuu soo qaadanaya taariikho kaleeto fursad ma u helayo haddii uu ku qori lahaa uu wax ka qori lahaa dhaqankiisa iyo taariikhdiisa ama uu u gudbin lahaa caalamka muhiimadda waxay tahay in iskuulaadka laga soo bilaabo oo yaraanta laga soo bilaabo qofka la soo baro taariikhiisa manaahij la sameeyo oo la soo baro taariikhda Soomaalida dhaqankooda si muhiimna looga soo dhiso naxwaha wix lagu qori lahaa marka taas laga soo gudbo jaamacadii ayagana xoog la saaray manaahijta ay wax ku bixinayaan markaas uu qofku wax soo saari kara ama caalamka tusin kara waxa uu yahay uu ma leeyahay backup iyo meel uu laabto aad ma santaan intaas ku dari lahaa assalaamu calaykum aniga special Umar Baasha weydiin lahaa hal su'aal sorry hadda anaga waxa leedinku dhiirigelinaya waxa waaye inaad baaxitiin noqotaan ama wax qortaan saa ogtihiin anaga dad islaamaha nahay marka hadda markii wax la qorayo waxa la bilaabay waxa shardi ah inay salka ku hayso diin aragtiyada qaar hadda waa la diimeeyaa saa ogtihiin maqaal haddaa rabtid inaad qortid meesha wax ka soo qaadatay ayaa dib loo raacayaa hadday noqoto marka urur diimeedka adiga aad ka tirsan tahay hadduu kabiirka ugu weyn aad ka soo qaadatay hadalkiisa waxa laga yaabaa urur diimeedka kale inaad ku qancin karin sababtana wax kale ma aha wax waaye
anaga meel dhex ma joogno ma isku dhawin ururdiimeedadeena marka wax walba oo la qorayo waxay u baahan yihiin in la diimeeyo diintina ururhay u kala baxday hadda saa ognahay anaga isbishal Soomaali ahaan urur beesalka ku haysa saameel dhex isku imaan karnaa marka anagoo rabna inaan wax qorno raali ahaa macalina ahay macalin lama yiraahdo soo koob waa hadal badanahay marka aada u maasantiin shukran su'aashaas baan wataa way mahadsan yihiin dadkii su'aalaha iyo faallooyinkaba dhiibtay waqtigoodna haya awgiis waxaan siin doonaa panelist dadka Cumar iyo Mahada waxaan siin doonaa hal daqiiqo oo su'aalihii tooska ugu quseeyay mid kasta inuu ka jawaabo Cumar Sadow waqtigoodna ugu yar si degdeg ah horta markaan diideyno ma aragta dhehayno dadka cadaanka ah nagama sameyn karaan research taas macnaheedu ma aha inaan phobia ka qabno ajaanibta ha fiican aan kala ilaalino phobia ma aragta aan caqliga ku dhisnayn laga cabsanayo qof walba ajnabi ah iyo in la dhaho qofka soo naftiisa ka hadlo aan waxaan qabaa laas ma diidi karaan mushkiladna ma lahan ma aragtay dad ajaaniba cadaan iyo carab iyo wixii doonaa ha ahaadaani cilmiga sameeyaan in la soo daliilsado aniga mushkiladu ma arki waa laakiin mushkiladu waxay tahay in lama jahabaabiyo ma aragtay ama lagu qabsado oo meel oo lagu xirto oo lagu hadlo adigan laga dhigo qof aan hadlin su'aasha kale ee muhiimka ah waxay ahayd hadda xaaladdan aan ku jirno ma dhahayna qofka Soomaaliga ha aado bakool ama ha aado bay ama ha aado ma aragtay shabeelooyinka hadda waxa muhiim tahay rabno waxay tahay qofka ardayga jaamacadda dhigto inuu ku tababarto tooliska wax lagu baaro ama agabka wax lagu baaro ama inuu barto social research-ka oo si fiican u barto hadoo meeshuu rabo ma aha haduu Kenya ha joogay wax ku baaran karo muhiimad maxay tahay marka inuu tooliskaas helo su'aasha ugu dambayso ahayd yani ما أعرف أركتون كالدول مذاهب أيديولوجيات كالدول سيدي ما أعرف علم بارس كل جان قال أنا حنقبا قفك توجه ربا هياشو وجدوا دونا هياشو أما أيديولوجي دونا هكتر سنة هذه مهمة حواي حجة هو إيمانه هذول قفك حجة الدفاع عن كرو حجة استماعت حجة لوجيك مسكحلي قاعدة كرتا تاي ويسيب راي كرتا وجوي كرتا لكن هذه حجة أنا لوجيك لهنا وما عرفتي أنا إزدفاعي كريم قد كبحث مرة أنا حنقبع قفك ريسيرش كأها فيرين حلقو كسو جيري وحوي هاي ريسلتي ما عرفت نتائج تقول بحثيسة بار نتائج هذه حجة فهاي لوجيك كفريدو معلومات كيسنا حب بديهين ويسير واريان كوي كلا ما عرفتي باقي كبحث دونان وما سنتي باشي ما هاد سؤال كلام دمن سكوبان وما سنتي runtii baasha ka jawaabay su'aalihii intoodii badnaa kaliya waxaan ku dari lahaa innaga hadii aan dhalinyaranahay waxa u baahanahay inaan isku dhiirigelino inaan wax badan qorno runtii Soomaalidu wax badan ma qorto hadii adiga ka jiifatid oo arimihii problems wadanka ka jiro in dad Soomaaliyeed oo wax ka baaro oo si cilmiyeysan wax uga soo bandhiga la waayana inay dad kale wax ku qoraan ma aragtay inaad didid ma ahan in wax la qorano runtii waxay u baahan tahay waqti badan oo dadaal iyo diyaar garow badan ay u baahan tahay marka innaga ina aqoonteena kubcina u baahannahay arinta kale oo aan isleeyahay Soomaali hadii aan nahay gaar ahaan waqtiga hadda ay joogno caqabad weyn way nagu tahay wayna nagu noqon doontaa waxa waaye qof ka saarin laakiin inta badan dadka hadda Soomaalida wax qoro waxa ku adag inay iska dhax saaraan beeshooda iyo ururdiimeedka ay ama ay saaxiibka liin ama ay kamid yihiin waxa laga yaabaa qofkii isaga aqoon-yahan ah oo qoraal la sameeynayo in haddana Soomaali badan aysan wixiisa akhrisan ay tiraahdo war ninka waa garanayna naga dhaaf urur hebel sheekadiisa wada ama qabiil hebel oo barmood garaya marka iyadana inaan wax qoristii aan ku dadaalno badan oo u baahannahay inaan iska dhax saarno xeendaabyadaasna oo u baahannahay oo si dhaxdhaxaada oo wax maaragtay dhaxdhaxaada oo wadanka u waarayo oo
oo badbaadada waddanka iyo horumarkiisa qayb ka noqonaya inaan qorno maasantiin. aad ay u mahadsan yihiin cumar baashe iyo mahad waa suge si kooban bay noogu bidhaamiyeen mawduuca Somali study iyo iskuullada kale ay muhiimka tahay in la baaro. sida hore idinkugu sheegnay hordhacaba waxay ahayd barnaamijka inay su'aalo uun abuuraan qofkii doonaya inuu sii sameeyo cilmi baaris badan ama wax badan akhriyana bugaagta Soomaalidu ay qortay ama bugaagta Soomaalida laga qoray ama kuwii hore maaragtay si uu ula xiriira geeska ama gobolkan oo taariikhdiisu inta badan isku xiran tahay in la akhriyo. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin mahad iyo cumar baashaba. waxaa noogu xigi doona haddii ilaahay idmo kaban kooban oo heese yaroo maaragtay furfurasho ah. haddii rabbi idmana waxaa noogu sii xigi doona panelka labaad oo inoogu martii noqon doonaan maaragtay laba dhalinyaro ah ayagana xarunta ifiye iyo xarumaha intooda badan ama madallada magaalada ka dhaca waxa caan ku ah ma ay ku yihiin intooda badan inay odayaal una hoostigareeyaan ama dad waaweyn laakiin inta badan dhalinyaradu aysan helin platform ama madallo ay ku hadlaan ama aragtiyooda kusoo dhiibtaan ayadoo markaas ay sahli karto hadduu qof dhalinyaraha soo muuqdo inuu qof kaloo dhalinyaro ah dhiirigeliyo ama isaga uu noqdo maaragtay role model ama waxa uu sameeyo wax la-eg uun inuu sameeyo ama dadaalkeeda uu galo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. panelka labaad aan u wada joogno insha allah aan la soconno aan qayb ka noqonno haddana aan heesaha maaragtay qaraamiga ah iyo qaybtaan maaragtay nasashada aan galno. aad baa u mahadsantihiin. نبدأ